runtii waxaa la yaab leh oo aan runtii rabaa inaan idinka jaahil saaro dadka ka soo jeeda Burco iyo Hargeysa iyo Gabiley iyo Berberiya meelahaas ee maamulka Somaliland si ay u difaacaan fashilka maamulka Somaliland gobolka Sool kaga yimi ayay waayeen marka waxa ay ku dadaalayaan in ay dadka maran habaabiyaan Soomaaliyeed aan arinta ka warhayn anagu ka warhaynaa oo arinta nooma sheegayaan iyaguna way og yihiin xaqiiqada laakiin dadka Soomaaliyeed ayay rabaan in ay maran habaabiyaan arintan idin cadeynaya waxa ay tahay waxay ku celcelinayaan dadka Somaliland tahay dadka gobolka Sool lagu dilaa waa dadka maamulka Somaliland u shaqeeyay kaliya bay ku celcelinayaan arintaas waa been waxa dadka meesha lagu dila kamid ahaa wiil iyo gabadh yar oo aroos ah oo suuqa bartankiisa lagu toogtay oo arinta waa la wada og yahay waxa kamid ahaa ganacsato waxa kamid ahaa culimo u diin waxa kamid ahaa kuwa xisbiyada mucaaradka ee maamulka Somaliland kamid ah oo nin ay hayto ama wadani taageersana ama u taageersana oo aan maamulka u shaqeyneen waxa kamid ahaa dad maamulka u shaqeeya waxa kamid ahaa dumar ba kamid ahaa dad hay'ado u shaqeeya dad safar ku yimi oo gobolada kale ee ama Buuhoodle ama maxay ahayd ama Sanaag ama meelo kale safar kaga yimi oo magaalada booqasho ku ahaa ba kamid ahaa dadka deegaamada degan ee dhul bahante qaybahooda kala duwan ayay ka koobnaayeen dadku oo ay kamid ahaayeen dad maamulka Somaliland u shaqeeya laakiin dadka noocyadiisa kala duwan baa meesha lagu dilay 100 iyo dheeraad weeyaan 120 qof weey marka arinta beenta ah ee maran habaabinta ah ee fashilka maamulka Somaliland gobolka Sool kaga dhacay ay doonayaan inay ku qariyaan ee ay ku celcelinayaan arintaas horta waa arin been ah ee la fahmo u baahan arinta kale ee yana fashilka ah ee ay muhiimka ah in ay yana fahmaan waxa weeye hadiiba ay dhacday cid kastaba ha ahaadeen dadka la dilayay maamulku in uu soo qabtay ahayd ma aha in uu dadkii qaarna dilo qaarna soo qabto oo ku raadgato taa laga ma wado waxa laga wadaa in wax run ah cadayna qofkii dilay la toogto ilaa weer rasaas bay wataan in qofkii la soo qabto oo media la hor keeno qofkii dadka dilay in baaritaan dhab la sameeyo in dadka la qabto gobolka loo daayo oo dadka dilay aan la kaxayn oo la geynin meelo kale ee gobolka ay ku xidhnaadaan laascaanood ku xidhnaadaan laascaanood lagu maxkamadeeyo laascaanood lagu baaro maxay ahayd arintii la xaliyo laakiin in dadkii la maran habaabiyo oo been la sheego oo mar la raxan weyn la tarxiilo oo dad walaalaheena Soomaaliyeed qof Soomaaliya oo dalkiisii jooga in magaalo laga tarxiilo qabyaalad daraadeed oo meel kale la geeyo in dadkii gobolka la dilo in haddana been la sheego la yiraahdo waxa la dilayaa ma aha gobolka ee waa dadka maamulka u shaqeeya waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan propaganda iyo maran habaabin bay muujinayaan culimaha ahaato siyaasiyiintooda ha ahaato madax dhaqameedkooda ha ahaato dadka la dilayo sidii loo qarin lahaa ayaa waxa la sameynayaa propaganda been ah dadkii mudaharaadka lagu dilay ayaa culimadii iyo caamadiiba waxa ay leeyihiin waa dad fawdo wada bay leeyihiin qaab noocaas hada qof Soomaali ah oo gobolkiisii jooga oo intaad ku soo duushay aad habeenkii dishay oo maalintii markay mudaharaadeen aad dishay inaad haddana fawdo ku tilmaantid ma adiga fawdo wada oo deegaankiisii ugu yimi oo ku dhex dilaya mise qofka deegaankiisii nabadgelyada ku waayay ayaan oran karnaa waa qof dhibaataysan marka runtii arintaasi waa arin yaab leh una maamuli kari waay amnigoodiiba sugi kari waay idii dambiga soo qaban kari waay qabaa'iladiiba iska horkeeno isku diraya dadkii markay ka gilgishaan ee mudaharaadaan baas iyo rasaas buu la dhacaya rag iyo dumarba dadkii buu xiraya oo waliba laascaanood kuma aaminay intuu qaato oo beelaha isaaq meeshay degaan Gabiley iyo meelo aan la garanayn uu geynaya oo dadkii ku abusaya يعني qaabka uu u maamulay gobolka Sool waa qaab fashilan runtii waa qaab fashilan oo qabyaalad ka muuqato oo argoosi ka muuqdo oo xadgudub ka muuqdo oo dulmi ka muuqdo oo indha la'aan ka muuqato laba yaabin Muuse iyo Maxamed Kaahin iyo ina waran caddo oo isagu cid walba dhibaato ku ah laba yaabin miskiinka yare buuriye afkiisa kareysta ee wuxuu doona ku hadlay waxa ku shaqeysta lama yaabin maareeyaha Muqdisho jooga ee maamulka Somaliland halkaas
كالدفاع رنتي لا يابيسيد وحاسو دان لما يابين وحاسن لا يابين علماء الدين برعيه هرقيسة كهذا الشيء إيا الصلاة الدين مدح dhaqameeda oo iyaguna hargeysa ka hadlay oo runtii si qaab daran u hadlay oo maamulka daalimka ah ee qabyaaladda ku dhisan ee gooni goosadka ku dhisan ee maamul xumada ku dhisan ee gobolkii Sool iyo Laascaan oo dadkii ku leynaya ayay waxay ku dadaalayaan in ay eeda ka duwaan oo ay yiraahdaan dadkii madaxa loo duubanayeen dad kala dilay dadka ka mudaharaadayeen ay ku tilmaameen dad rabshado wada runtii aad baan uga xumaaday in iyagoo culimo ah ama iyagoo madax dhaqameeda intii ay maamulkooda cambaareen lahaayeen oo oran lahaayeen ciidamada laga soo saaro gobolka Sool oo ay tallaabo wanaagsan qaadi lahaayeen oo ay oran lahaayeen maamulkani ha ka soo baxo gobolka Sool ha joogo deegaamadiisa og iyo wixii ka shisheeyay deegaan ha geysteen may oranin waxay doonayaan in gobolka sii haystaan waliba inay ku dagaalamaan oo ilaa hadda burciye hargeysa ciidamadu ka soo socdaan ay isu soo gurmanayaan in ay ku dagaalamaan bay doonayaan hadday dagaalamaan oo meesha la isku dilo oo khasaaruhu intan ka sii bato dadka colaad dhaba dhex maraysa qabaa'ilka waa la sii kala fogaanaya wax wada lahaanshaha sii fogaanaya wada noolaanshaha sii fogaanaya ganacsiga sii xumaanaya yacni dagaal sokeeya waqooyiga si dhaba uga dilaacaya sida ugu dhow ee xalkeedu yahay waxa weeye in maamulka Somaliland uu deegaamada Sool iyo Sanaag cayn iskaga baxo wada hadal dhabana dadku galaan waxa la rabo iyo waxa la wada lahaan kariyo waxa la kala lahaan karana laga wada hadlo laakiin waan khasab baan ku joogaya oo ma ku joogi karan khasab dagaalada meesha ka soo socda halis ah colaad baa ka soo socota oo maamulka Somaliland wado oo hor maamul xumadiisii uu gobolka Sool ka sameeyay oo qabsashadiisii oo dhacday oo dadkiiba iskaba ogolaadeen oo balaleeyay bal haday wax maamuli karaan bal aan eegno ay maamuli kari waayeen amnigiisu kari waayeen horumarkii ganacsigii noloshii naftii baa dadka la soo keenay naftii dadku waxay ka mudaharaadayaan nabadgelyaanu doonayna markaas dadkii lahaa nabadgelyaanu doonayna rasaas la dhacay heerkaas ay marayaan marka runtii culimada diinta iyo madax dhaqameedka salaadiinta maamulkooda khaldan garab taagan ee qabiilka ku taageeraya runtii arrintaasi waa arrin aad iyo aad u foolxun unsur akhaaka daaliman oo madluum baa nabigu yiri walaalka u gargaar hadii la dulmiyo haduu wax dulmiyayba asxaabadii baa weydiiyay waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi haduu daalim yahay garanay hadii la dulmiyo garanay oo aan wax ka celinay haduu daalim yahay say ugu gargaarayna ka qaba gacanta buu qabo maamulka Somaliland salaadiintiisa iyo culimada diintiisu ha hadleen hana qabteen isgarab taagayaan ha joojiyeen culimada kuwa aamusan iyo salaadiinta kuwa aamusan waa calaamatu ridaa raalli bay ka yihiin wax maamulka Somaliland sameeyo kuwooda hadlay ee maamulka Somaliland garab siiyay u hiiliyeen dulmi bay u hiiliyeen waxaan u mahadnaqayaa boqor buur madow oo si qurux badan oo sharaf leh oo Soomaalinimo ah oo reer waqooyinimo ah oo madax dhaqameednimo u hadlay oo ugu baaqay maamulka Somaliland inuu ka baxo gobolka Sool dadkana ammaan uu siiyo boqorkaas runtii kelmad wanaagsan ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafajiyay oo dadku ay u garaabeen waana bari nin dadka dhexdhexaadin kara ninku marka uu dhinaca xaqa istaago daalimkana uu qabto bari uu garnaqi kara laakiin qofku marka uu isagoo madax dhaqameed sheeganayo culimo sheeganaya uu qofka daalimka garab siiyo oo madluumkii la dulminayay uu ku joogsado oo uu ku diiqdiiqsado hadhowto dhexdhexaada ma geli karo oo de waaba la arkaaba inuu dhan jiro marka dadkeenu wax kala qaboojiyay u baahan yihiin qofka daalimka ana qabta maamulka Somaliland gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ha iskaga baxo beesha isaaq dhulka ay degan yihiin ciidamadooda ha geysteen haddii la wada lahaanaya haddii la kala tagayaba dadku markaas waxay isku darsadeen laakiin xoog iyo qori caaradii ma u malaynayo dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan oo dagaal dhaba u soo diyaar garoobay in ay maamulka Somaliland is hortaagi karo dagaal dhaba ka dhacaya kumana ekaan doono dagaalku laascaanood kuma ekaan doono argudasha iman doonta suurtagal ma inta laascaanood burburisid oo ku dagaalantid oo dhibaato sameeysid marka laga saaro inaad deegaankaaga nabad ku tagtid
wixiina dhinta mooyaane waxa kale meesha ay galaan baa laga dabagelayaa burca lagula tegaya meel kasta lagula gelayaa marka runtii inta goor tahay wadada lagu banaynayaa iskaga baxa deegaamada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadkeenu inay isku dhintaan baajiya in dhulkeenu burburana baajiya in intaad jabtaan laydinka daba yimaado deegaamadiina laydinkula dagaalana baajiya hadda idinka midida daabkeeda haya kaliya waxa ay ku sugan tahay idinkoo deegaamadan Sool iyo Sanaag iyo Cayn iskaga baxa intaasa nabadgelyo iyo isfaham iyo isu soo dhawaanba ummadana ku filan ogow haddii dagaal dhaco waxaa fogaanaysa wada noolaanshaha wada hadalka nabadgelyada wada noolaanshaha in wax la wada lahaado waxaasoo dhan meesha ka baxaya waxaanaad hiigsanaysaa ma sii jirayaan laakiin maanta haddii aad ka baxdid qof dadkan tunaale iyo dagaal inuu sokeeyo dhaco iyo in maxay ahayd ummaddu ay kala fogaato qof iska ilaalinayo oo bal wuxuun iskula hadhaya khaladba kaa dhacaya baad noqonaysaa laakiin waan soo gurmanayaa oo waan dagaalamayaa baad taagantahay oo haddana khasab baad ku maamulaya magaalada aad bay u adagta intaasaan idinla wadaagi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu